Vladimir Putin ayaa sii ahaan doona madaxweynaha Ruushka tan iyo sanadka 2024 waxaana aad loo hadalhayaa go'aanadiisa ku aadan dalka Ukraine gaar ahaan markii uu amray ciidamadiisa inay galaan bariga dalka Ukraine. reer galbeedka ayaana aad u hadalhaya arrintani iyo tallaabada ay qaadi karaan Putin iyo xukuumaddiisa waa haddii ciidamadu ay fuliyaan amarka xukuumadda ee ah inay gudaha u galaan bariga dalka Ukraine. inkasta oo wax badan laga yaqaano hogaamiyaha Ruushka, haddana waxaa jira waxyaabo badan oo ay dadku rabaan inay sii ogaadaan. tijaab ahaan ayaa dhowr su'aalood oo Putin ku saabsan waxaa loogu qoray Google-ka, waxaana la fiiriyay bal inuu tala ahaan noogu soo bandhigi karo Google-ka, waxaana la go'aansaday in la idinkaga jawaabo su'aalahaasi maadaama Google-ku uu intooda badan jawaab u waayay. marka la eego dhanka xaasaska, Putin xaas ma uu leeyahay? jawaabtu waxay noqonaysaa maya. inta aan ka warqabno, isaga iyo xaaskiisa ay 30 sano isqabeen ee lagu magacaabi jiray Lyudmila waxaa furiinkooda ay shaaciyeen bishii Janaayo ee sanadkii 2013 inta aysan ku dhawaaqin in dhif iyo naadir ay ahayd in meel fagaaraha lagu wada arko muddo bilooyin ah. waxaa jira warar la isla dhexmarayay oo sheegaya in Putin uu shukaansado haweeneyda lagu magacaabo Alina Kabubeva oo siyaasiyad ah horeyna ciyaaraha fudud ugu soo qayb gashay, laakiin ma jiraan wax tilmaamaya in warkaasi uu dhab yahay. dhanka kale, su'aalaha dadku inta badan ay Google-ka iska weydiiyaan ee ku aadan Putin waxaa ka mid ah miyuu yahay qof guran ama adeegsada gacanta gurta ah. maya ayay jawaabtu noqonaysaa haddii aysan wax isbedelin tan iyo bishii Janaayo markaasi oo la qaaday sawir ka mid sawirada isagoo wax ku saxiixaya gacantiisa midig. su'aalaha kale dadku inta badan ay iska weydiinayaan ee ku aadan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaa ka mid ah inuu yahay nin qani ah ama inuu yahay qof dhaqaale haysta iyo in kale. mushaarkiisa rasmiga ah waxa uu sanadkiiba u dhigmaa madaxweynuhu $112,000 Mareykanka ah, sida ku xusan macluumaad ay diyaarisay guddiga doorashada ee Ruushka ka hor intii aysan doorashadii la soo dhaafay aysan dhicin. laakiin 2 sano ka hor, mas'uul waaxda maaliyadda ee Mareykanka ka tirsanaa ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in Putin uu yahay nin musuqmaasuqayste ah uuna sanado badan qarinayay hantidiisa. waxaan aragnay inuu saaxiibadii iyo dadka ay isu dhow yihiin uu maalqabeen ka dhigo isagoo adeegsanaya hantida dawladda, kuwa uusan saaxiibada u arkinna uu faquuqo, ayuu yidhi sarkaalkaasi. aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin-ka waxa uu eedeymahaasi ku tilmaamay mala awaal cad, isagoo ku tilmaamay in dawladdu ay ka hadasho arrimaha madaxda dawlad kale inay tahay xadgudub. si kastaba ha ahaatee, qoraal aan rasmi ahayn oo CIA-du ay sii deysay sanadii 2007 waxaa lagu sheegay in hantida shakhsiga ah ee Putin ay ku dhowdahay $40 bilyan. qof wax falanqeeya oo naqdiya Donald Trump ayaa sheegay sanadii 2012 in laga yaabo in hantidiisu ay gaartay $70 bilyan, taasi oo ka dhigi lahayd ninka ugu taajirsanaa adduunka xilligaasi. su'aalaha kale ee dadka ay isweydiinayaan waxa ay tahay oo Google-ku lagu qorayo Putin miyuu dhintay, waana su'aal la yaab leh. jawaabteenu waxay noqonaysaa maya. guushiisii doorashada ayaa siyaasi tilmaamaysa oo waa uu nool yahay. inkasta oo sidaasi aan iri, haddana xaaladiisa caafimaad ayaa la isla dhexmarayay sanadii 2015 inay gaartay meel xun kadib markii meel fagaaraha aan lagu arkin 10 maalmood. miyaa la afgambiyey ayay dadku isweydiiyeen, iyo sidoo kale miyuu dhintay. meelmo kale ayaa u dhashay oo aabba ayuu noqday. arrimahaas oo dhan dadku waa isweydiinayeen, laakiin markii uu madaxweynuhu uu soo muuqday waxa uu yidhi nolosha waa lagu caajisi lahaa haddii aysan jirin wararka la isla dhexmarayo, isagoo si kaftan ah uga jawaabaya su'aalaha kuwa isaga dhaleeceynaya ama tilmaamaya inuusan banoolayn. su'aalaha kale ee la isweydiinayo waxa ay tahay Putin miyuu yahay mid xayawaanada aad u jecel oo naxariis badan. inagama duwana innaga oo marka uu aad u faraxsan yahay muusood ayaa ka muuqanaya wejigiisa iyo inuu jacayl badan muujinayo mararka qaar. maxaa si gaar ah uga qosliya isaga haddii aad isleedahayna bal ka waran markan oo uu eydiisa la ciyaarayo sida uu u qoslayo. haddii aad arki lahayd waxaad dareemi lahayd inuu yahay qof aad u jecel xayawaanada iyo sidoo kale ciyaarista isboortiska. su'aalaha kale dadku isweydiinayaan waxa ay tahay isagu muxuu taageeraha weyn ugu yahay madaxweynaha dalka Syria ee Bashar al-Assad, si gaar ahna Syria muxuu ugu arkaa meel muhiim u ah Ruushka. Suuriya aad ayay muhiim ugu tahay Ruushka istiraatiijiyad ahaan, wuxuuna halkaasi ku leeyahay 2 saldhig oo military oo ka mid yahay saldhigga weyn ee ciidamada cirka Ruushka ee Xamiim. xukuumadda Bashar al-Assadna waqti dheer ayay xulafo muhiim ah la ahayd Ruushka. markii uu Suuriya dagaalka ka qarxay sanadii 2011 kiina
ruushku waxa uu ku taageeray Bashaar al-Assad in uu siiyo ciidamo, hase ahaatee ma aysan soo degdegin arrinkaasi, laakiin dagaalka faraha lama uusan gelin wixii ka horreeyay sanadii 2015. ku lug lahaanshiyaha ruushkuna waxa uu dhaliyay laba ujeedo oo kala ah in xukunka uu ku sii hayay Master Assad iyo in bar uu ku suntay masraxa caalamka, isagoo xaqiijinaya in Mareykanku uusan si sahlan danihiisa oo dhan uga fashan karin gobolka. su'aalaha kale dadku isweydiinayaan waxa ay tahay caruurta Putin miyuu ka mid yahay wiil? jawaabtu waxay noqonaysaa maya, laakiin laba gabdhood ayuu leeyahay madaxweynuhu, waxaana la kala dhahaa Katerina iyo Maria. wax badan lagama yaqaano, Putinna wax badan kaaga sheegi maayo arrinkaasi, laakiin baaritaan ay sameysay wakaaladda wararka ee Reuters sanadii 2015 waxay ku ogaatay in Katerina iyo ninkeedu ay maalqabeen yihiin. su'aalaha kale ee dadku ay iska weydiinayaan madasha baarista su'aalaha iyo jawaabaha ee Google waxaa ka mid ah in Putin uu yaqaano luqadda Ingiriiska. ayay jawaabtu noqonaysaa, waxaa la duubay isagoo si wanaagsan ugu hadlaya Ingiriis. Dmitry Peskov oo ah afhayeenku waxa uu sheegay waa afhayeenka Kremlin-ka in Putin uu saxo tarjumaanada haddii aysan si wanaagsan u tarjumin Ingiriiskiisa. su'aalaha kale ee dadku isweydiinayaan waxa ay tahay miyuu ka helaa Trump? taasi waa su'aal xiiso badan. 13 ruux oo Ruush ah oo uu jiro nin ay Putin isu dhawaan jireen ayaa waxaa lagu soo oogay inay isku dayeen in ay sameeyaan ama ay saameyn ku yeeshaan doorashadii Mareykanka ee sanadii 2016 iyagoo taageeraya Trump iyo sidoo kale madaxdii ka sharaxaneed xisbiga dimuqraadiga qaarkood. laakiin xaqiiqda Putin ma jecel yahay Trump? taasi kama jawaabi karo qof aan ka ahayn madaxweynaha Ruushka. su'aalaha kale ee la isweydiinayo waxaa ka mid ah miyuu mamnuucay matalaadiisa? arrintan ayaa lagu warramay sanadii 2015 balse taasi beddelkeeda waxa uu muuqatay soo jeedin mamnuucid toos ah ma ahayn. laakiin intaasi kadib wasiirka cadaaladda ee Ruushka ayaa ku dhawaaqay in sawirka hoose iyo sawirro kale oo wax yar laga bedelay la dhaqmi doonaan ama ay ula dhaqmi doonaan kuwa argagax ah. waxayna sheegeen in madaxweynaha sawiradiisa in lagu ciyaaro ay tahay mid khalad ah. isku soo wado su'aalahani ayaa waxa inta badan dhaliya saameynta ninkan uu ku leeyahay caalamka. waxa uuna 10kii sano ee la soo dhaafay si toos ah uga soo muuqanayay madaxda caalamka kuwooda ugu saameynta badan. ninkan quwadda badan ee u taliya ciidamada kumanaanka kun gaaraya ee dul hogganaya Ukraine. waxa uu sidoo kale uu xafiiskiisa ku hayaa furaha in ka badan 5,000 oo madaxyo nuclear ah, kuwaasi oo haddii uu fasaxo burburin karaya dalal badan oo qaaradda korkeeda maanta ku nool. Ukraine ayaa hadda ah dhibanaha koowaad ee Ruushka marka laga soo tago Syria, waxaana ciidamadiisa laga yaabaa in gudaha ay u galaan dalkaasi iyaga oo fulinaya amaradiisa, taasi oo u gogol xaari karta dhibaato ba'an oo Ukraine ay wajihi karto. in ka mid ah gobolka Donbass ee magaalooyin ku yaala ayaa waxa uu aqoonsaday inay yihiin dalal, taasi oo reer galbeedku ay aad uga caroodeen.